waxaa isku keentay dhalinyaro hogaaminayso isbedelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan rabaa inaan halkan uga waco panelistayaasheena oo ugu horeeyo Xamse Cabdiwahaab. Xamse Cabdiwahaab waxa waaye Director of Somali Youth Hub oo ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga. Hubka wuxuu ka shaqeeyaa awoodsiinta dhalinyarada, laakiin asiga wuxuu matalaa dhalinyarta, wuxuuna ku matalaa goobo badan. He is also the founder and the co-director of the Diplomacy Talk series oo engage gareysa dhalinyarta arrimaha xalalka waara. He is also a permanent advocate since the age of 14. Waxaan rabaa inaan halkan sidoo kale uga waco Cabdiladiif Cumar. Cabdiladiif is the Director of Action for Environment, and he is also a dedicated environmental advocate, lecturer at the Somali National University. He works closely with the generation maanta rabno inaan discuss gareyno. Sidoo kale wuxuu u qaadaa codadka civil society-ga markii la sheeg gareynayo environmental policies-ka. He is a committed climate activist. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u waco Cabdifataax Xasan Cali. Cabdifataax Xasan Cali waxaa waaye Capacity Development and Partnership Specialist. wuxuu hadda la shaqeeyaa UNSAM, hay'adda UNSAM. wuxuuna focuskiisa yahay sidii loo enhance gareyn lahaa civic spaceska, loo address gareyn lahaa climate change-ga, iyo loo horumarin lahaa xalalka waara ee aan dhahno sustainable development goals. Isbedelka cimilada dhibaatada oo ku haya dalka. sidaas oo sheegnaba 70% dalka Soomaaliya waa dhalinyar ka yar da'da 30 sano. waxaa laga yaabaa marka qaar dadka dhalinyaro intay maqlaan u maleeyaan teamka teenage-ka high school-ka dhigta. waan isbedelka ugu mug weyn ee maanta maxaa la dhahay maanta la tiirsan karo. magacayga waa Joeri Garcade. waxaa ahay Trade and Sustainability Researcher, Climate Advocate, haddana ka tirsan macadka isbedelka cimilada iyo environment-ga ee jaamacadda Simad. waxaa ka ahay Visiting Researcher, horena waa la soo shaqeeyay. waxaan rabaa marka inaan panelkeena guda galno. panelka waxaan rabaa inaan su'aalaha badanaa maadaama waqti yar ah heysano 2 daqiiqo kusoo koobno. ana ku bilaabo su'aal dhextaal ah. waxaan rabaa inaan ku bilaabo waa maxay aragtidaada ku aadan as maxaa la dhahay Cabdifataax, Cabdiwahaab iyo Cabdiladiif doorka dhalinyarada ee la dagaalanka isbedelka cimilada gudaha Soomaaliya. marka abilka fitu من أصحابتي أنا أقول مريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوهرية مديريتر كاتبان سيدا في عنو حريني سيدا أقول مدعينيا. جوابتها سؤال آدم مهم سن أو دور كده يرتوه دور آدم بحسن. markay noqoto cimiladii deegaanka. hadda si ay ula socotiin dawladdu waxay sameysay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada 2 sano shaqeynaysa oo very active noqotay cimilada in la ogaado waxyaabaha qabato. niman asxaab baa sheegay maan hore sheekaysanayno cimilada waxay noqotay a trending issue in the country. waa arrin aad u fiican oo maanta qof kasta Soomaaliyeed uu fahmi karo cimilada iyo deegaanka iyo isbedelka cimilada waxyaabaha tahay maxaa important ahayn oo kulligeen aan ka hadlayno cimilada wax aad u fiican oo in la bogaadiyo mudan tahay. sanadaha hadda la soo socday wasaaradda dhalinyarta oo kale naftirkeeda ku doontaas way soo kortay in cimilada wax laga qabto. ICE macadka iyo organizationo kale iyo xarunta dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan isla qabanay waxa la yiraahdo local conference of youth of oo markii ugu horreysay Soomaaliya ka dhacday. taas naftirkeeda waxaa ka soo baxay youth statement ku aadan arrimaha cimilada iyo dhalinyarta waxay ka qabaan. marka waxa u muuqdaa marka in dhalinyarta fahansan tahay cimilada iyo deegaanka iyo waxyaabaha laga hadlayo, not very deeply laakiin haddii la dhaho generally they are very much aware. arrinta hadda la xoojinayo u mudan waxay tahay marka adaptation-kii cimilada waa baranay, waa fahansanay inay dhibaato tahay, waa fahansanay inay dhaqaale badan ku baxdo. adaptation sida loo sameeyaa sidee ugu noolaan karnaa arrimaha hadda socdo aan ugu sii qabsan karnaa wax isbedelaysa maaha wax wiligeeda sii socon doono. taasina insha Allah waqtigeeda ku imaanaya isleeyahay, laakiin hadda waxaan isleeyahay aragtideeda in la wada fahansan yahay waxa cimilada tahay doorka dhalinyartana aad ugu muuqato sida hadda u jeednaba.
waxaan mahadcelinayaa ice iyo dhammaan panelistayaasha barnaamijka qayb ka ah. Sidoo kale waxaan mahadcelinayaa Jawairiya. Su-aasha haddaan u guda galo, dhalinyarada mas-uuliyad oo waxaa saaran aada u culus. Sida hore u sheegtay inay bulshada almost waxaa waye 70 iyo wax ka badan boqolkiiba ay bulshada Soomaaliyeed ka yihiin, taasoo macnaheeda tahay mas-uuliyad culus ku soo laabanayso. So marka ugu horeyso waxa ugu horeeya laga rabo dhalinyarada in horta intooda sektorka maanta ku jiro iska kooban waaye. Markaan fiirino bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ama dhalinyarada guud ahaan aan fiirino climate-ka markii laga hadlayo in yaroo xamar joogto ay lead gareynayaan dhalinyaro ah. wasaaradda sax sanad 2 sanaan hadda wasaaradda jirtaa hor agaasinaa jiray. siday hore waa dhaanaa wax yar wacyigii markii la fiiriyo markii hawshan ay wacyiga dhalinyarada inay wacyigelinta bilaabaan ay soo bilaabatay, laakiin hadda still weli waxaan u baahanaa dhalinyarada in la wacyigeliyo. keliya ma aha wacyigelinta tii oo jaamacadaha keliya ama iskuulaadka lagu tagay, laakiin platformyada kala duwan oo dhan bulshada qof walba wuxuu heli karo fariinta uu gaarsiin karo bulshada inuu gaarsiin karaan dhalinyarada gaarsiiyo. labo, inta ku hoolan ka shaqeynta isbedelka cimilada sida wax looga qaban lahaa ayagana waxaa la rabaa inay la imaadaan hal abuuro maxay ahayd wax ka qabasho dhab ah, ficil rasmi ah inay la imaadaan. dadku way isugu jiraan, dadna passion ka tahay, dadna waa soo shaqo tageen. hadda climate-ka waxaa waa cid walbo waxaa waa hadda waa xiiseynaysaa lean waa issue taagan waaye, waa global waaye. Soomaaliyana maba kusii jirto, marka waxa la rabaa wax la imaado inay noqdaan wax oo dhab ah, ficil rasmi inay la imaadaan. dhalinyarada sidoo kaleeto waxaa la rabaa inay u ololeeyaan siyaasadaha iyo shuruucda la xiriira wax ka qabashada isbedelka cimilada ama deegaanka si guud ahaan. keliya markii meelahan la iskugu imaado ama goobaha kale looga hadlo arrimaha deegaanka looga harin, in la fiiriyo national adaptation plan maxaa ku jiro, NDC-ga dhalinyarada maxaa ka quseeyo, in la fiiriyo maxay ahayd guud ahaan policyada ee maxay ahayd deegaanka ilaalintiisa iyo guud ahaan iyo gaar ahaan isbedelka cimilada inay maxay ahayd eegaan, kadibna ay fiiriyaan maxaa uga jiro. ugu dambeyn waxaa kusoo gunaadin lahaa dhalinyarada mas-uuliyad fara badan saaran. isla xisaabtan inay la imaadaan ay tusaale ahaan mashaariic fara badan oo waxaa jira isbedelka cimilada wax looga qabanayo, sax ayaga ma liid gareeyaan, laakiin at least intay xogtii raadiyaan xaggee mareen inay isweydiiyaan mashaariicdaas xaggee mareen, in dowladdii lala xisaabtami karo. haddii aan u fahanno dowladdii inaan meesha ugu sarreysay ay tahay waxna laga qaban karin, culeys waaye. dowladdii in anaga bulshada u adeegaysa in loo fahmo in lala xisaabtami karo. any project oo climate dedicated ahaa in wax looga qabta meeshuu maray inay ogaadaan la rabaa, gaar ahaan dhalinyarada sektorka ka shaqeeya ee isla xisaabtankaasna ay sameyn karaan. aada u mahadsantahay. galab wanaagsan. waxaan u malaynayaa qodobadii ugu muhiimsanaa waa la sheegay, marka waqtiga inoo ilaalinayo hal qodob rabaa inaan ku daro oo ah qaybta climate educationka ama dadka inay dhalinyarada kaalin muhiim ah ay ka ciyaaraan qaybta baridda dadka waxyaabaha ku saabsan isbedelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka, weliba iyagoo isticmaalaya social mediaha waa fursadda ugu weyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay haysto. wax lacag ah uu kaaga baahan yahay oo funding ama cid inay wax kugu siisana ma jirto. marka platformkaas freega ah oo wax lacaga nooga baahnayn hal isticmaalo, dadkana ha lagu baro ilaa miyiga baadiyaha meel walba ha lagu gaarsiiyo. intaasaan ku dari lahaa. kaalintaas waa kaalin dhalinyarada u furan, wax resource iyo wax ay kaaga baahan tahay jirin. Thank you so much. waxaan u maleynayaa midda climate awareness-ka iyo climate education-ka waa dareemi karaa muhiimadda ay leedahay iyo siday u tahay almost zero cost inuu qofka initiative-kaas markuu dhalinyarada intuu qaado oo galo oo wacyi ku aadan isbedelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka inuu sameeyo. waxaa rabaa marka inaan roundka labaad u gudbo as we said waqtigaan hayo. waxaa rabaa Xamza ku bilaabaa. Xamza, Somali Youth Hub waxaa ognahay inay qayb ka tahay inay ka qayb gelisa dhalinyarada doodaha muhiimka ah. sidee ayaa u heli karnaa in talaabooyinka ku saabsan isbedelka cimilada ay noqdaan mudnaanta koowaad ee dhalinyarada?
mudnaantana waxaa loo leeyahay maanta dhibaatada climate change-ga waxaa waaye dhibaato heer walba dadka kusoo food leh dhaqaale haddee tahay faamilkaada hadduu yahay deegaankaada hadduu yahay marka mudnaantaas dhalinyarta dhexdeeda see loo xoojin karaa? That's my question. jawaar aad baa mahadsan tahay su-aal aad u qiimo badan weeye dhalinyarta horta from the beginning waxaa la sameeyey inay kasoo qayb qaataan arrimaha environmentka sidaa ogtihiinba waxaa jiro national youth policy sharciga dhalinyarta qaranka wuxuu leeyahay 10 pilar ama 10 hadaf oo dhalinyarta soo ayaga consultation sameeyay oo ayaga soo qortay gacantooda ku qortay 10kaas ahdaaf ama 10kaas pilar waxaa ku jirto pilar number 8 oo ah environment and climate change oo waxayna ku jirtaa national youth policy ga 2023 bishii May cabinetkii approve gareeyeen taas waxay ku tusaysaa marka from the consultations aan la sameeyay dhalinyarta inay ku jirto cimilada isbedelka cimilada deegaanka in ahmid u tahay kasoo gudub arintaas oo kale hadda waxa u jeedaa 2024 waxaa batay dhalinyaro badan oo hay'ado furtay organizationo yar furtay oo ka hadlaysay cimilada isbedelka iyo deegaankaba marka wasaaradda waxay sameysay wasaaradda deegaanka waxa jecelahay sanadka hore waxay sameysay registration of youth organizations oo ka shaqeeya arrimaha cimilada oo kontumeeye gaarayo anaka doorkeenu waa door in la isku xiro grassrootkii iyo dawladdu grassrootka marka noqoto shirar badan baa loo qabtaa oo hadda ugu dambeysay shirweynihii localka elkoyga ahaa iyo waxyaabaha ka soo baxay sidee marka dawladdeena ugu gudbin karnaa waxaa dhihi karnaa dawladda elkoy waxaasa ka soo baxay shirweynahan waxaana ka soo baxay waxaa la isku aragti waxaa la isku gaaray in 4 qodob ee dawladda ka gaabisay sidee loo xoojin karaa ama sidee loogu horgeyn karaa dadka donorska oo arintan wax uu qaban doono marka gaabkaas oo jiray awal ayaan anagana isleeynaa gaabkaas rabna inaan buuxino oo ah in dhalinyartii iyo dawladdoodii la isku xiro oo la yiraahdo dhalinyarta intaas soo qabatay intaasay leedahay rabtina dawladda qabato ama vice versa oo dhalinyarta naftirkooda intaanay ka gaabsan yihiin shaqadooda si fiican u qabanne bal ayaga naftirkooda sidee loo xoojin lahaa in engagementkooda from grassroots level to bottom to top level in loo qaadi karo arrintaas intaasaas leeyahay insha allah. And I believe that's very insightful for everyone oo hadda maanta daneynayay mudnaanta dhalinyarta la siin karo waxaa rabaa inaan u gudbo su-aal kale oo cabdifataax kusoo celiyo arrimaha maaliyadda iyo go-aan qaadashada markay tahay dhalinyarta waxay aad ula kulmaan lack of resources they want to take initiatives campaignka hadda ka dhawaajiso waa rabaa inay kulaabatid sidoo kalena inay ka qayb qaataan siyaasadaha looga hortagayo isbedelka cimilada marka su-aasheedu waxaa waaye sidee markaas dhalinyarada ku horumarin karaan labadaas arrin oo ah maaliyadda iyo go-aan qaadashada inay ka qayb noqdaan? aad waa mahadsan tahay horta marka hore waxaa rabaa hal arrin inaa aniga nafteyda dhalinyarada kolley dhalinyarada ma ku jira dhalinyaro cuslaataad sii galay iyo dhalinyarada hadda soo baxayso hal arrin inay maskaxda laga saaro barnaamijkan oo yacni qofka uu macnaha yani see u dhigaa qofka uu ku raadinayo ama uu waxa danta ugu dambeysa uu yahay inuu mashruuc ama lacag uu wax ku raadiyo ama finance ku helo haddii barnaamijka meeshaas uu galo wax ilaa aakhirada ilaa adduunyada ka gadoomaysa wax noo qabsoomaya malahan hadda idin sheegayaa waxaan haddii loo qabanayo qofka rabo inuu u qabto inuu bulshadiisa iyo dadkiisa wax u qabto hadday tahay adoo lacag iyo waxba ku raadinaya wax badan qaban kartaa macnaha waddanka waxyaabo badan oo waxaa jira successful oo wax laga qabto hadda waxaa socda barnaamij oo wacyigelin oo aad u fiican oo ma aqaan hormuudka markaa is wacaysaan fariinaan ku jirto soo maaha fariintaas ma waxaa u baahannahay World Bank iyo Green Climate Fund inay ku bixiyaan 100 milyan iyo 200 milyan inaa baxdid oo xaafadaada aad tagtid ama iskuulkaada ama goobtaada shaqada aad ka hadashid oo ii sheeg dadka ii sheeg kala shaqaysid ama ka wacyigelis xataa wacyigelin xataa ka samaysid ama social media aad isticmaashid lacag millions iyo 100 milyan uma baahna inaa gurigaada geedo yar ku abuurtid uma baahna climate discussionska waddanka ka socda inaad ka qayb gashid ama jaamacadaada ama organizationkaada adoo inaa organization samaysid si aad lacag u heshid qofaa wuxuu u dhahay niyo COP29 aan rabaa inaan ka qayb galo isku diyaarinayaa
organization aan samaystay marka inaan soo kala kiciyaan rabaa sawirro fiican iyo wax ku soo galo marka qofkaas COP 29 wuxuu aadayaa inuu Soomaaliya climate action wax ka qabto mise wuxuu aadayaa inuu ujeedo kale u leeyahay marka number 1 waxaa rabaa marka koowaad inaan horta mar walba maskaxda aan ku xirin يعني wax walba inay of course mar walba lacag waa loo baahan lacag la'aan wax soconaya malahan waa sax laakiin haddii mar walba aan ku xirno wax walba lacaga ishaga wax soconaya malahan hadda kor Zanzibar waa Tanzania ka tirsan tahay waxaa problem waxay qabaan oo badda ku soo sikanayso si badda marka oo ishag oo looga hortago badda kicitaankeeda maxaa la sameynaya dhaheen waxaa jira geed yar mangrove sadaati ambassadorka ka hadla umalina mangrove mutaqaaniin mangrove waa geed oo loogu talagalay wuxuu ka baxaa xeebaha ka baxaa biyaha cusbada ka baxaa waxaa loogu talagalay biyaha badda in lagu celiyo forest marka xeebta waxaa laga sameeyaa forest laga sameeyaa kayn caadi laga sameeyaa marka waxay sameeyeen dadka oo dalxiiska iyo dadka caadiga iyo iskuulaadka iyo ardayda qof walba oo imaado hal geeda loo dhibaa abuur lahaa marka meel waxaa jirta oo gaari oo I think uu ku socday ku dhawaan kayn dhexdeeda oo xeeb ah waaye 30 daqiiqo uu ku socday waa dareemi kartaa baaxadeeda oo ay abuureen dadka banaanka ka imaada bis dalxiisayaasha bis ay abuureen waa initiative oo dawladda iyo ka wada shaqeynayaan community-ga waa meesha tagaysa adiga adoo dalxiis ah ama isha ama arday ah waa xal u leeyahay geedkan halkan geed noo abuur sawir laga qaada taariikh yar meel lagu qoraa wax lacag uma baahna initiative uma baahna marka fiirisid way ku sheegayaan information ku siinayaan waxay ku leeyihiin intaan u baahan maxaa la jiray ishag oo ay celisay marka tan koowaad horta marka inaan ka fiirino tan labaad arintii kale oo haddana waxay ku xiran tahay isku filnaanshaha waxaan usoo laabanaa arrintii private sector-ka oo maanta dhan laga hadlayo in bangiyada iyo institutionada waddanka ka jira ee lacagaha bixiyo ayagana intii lala fariisto la fahamsiiyo I'm sure inay bixinayaan grants ama dhalinyarada ku bixiyaan ama jaamacadaha ku bixiyaan ama dadka kale ee climate action ka shaqeynaya marka koowaad horta taas in laga saaro marka labaadna aan priority aanan isha ka dhigano in waxaan dadkeena iyo waddankeena aan wax uga qabanayno intaas ku soo gabagabeyna thank you so much marka for one last time waxaa ku celinaa su-aasha Cabdi Ladiif Cumar waxaa umaleynaa waxaa wadaagnaa arrinta inaan education setting ka shaqeyno and I believe one of the most important pillars is education markii climate change la joogo maadaama tahay macalin also oo leh deegaanka sidee waxaa rabay inaan marka ku weydiiyo sidee ururada waxbarashada u qayb qaadan karaan ama u xoojin karaan arrinta dhalinyarta qoseysa markii la joogo climate change sidee loo dhiirigeli karaa what kind of maxaa la dhahayay maxay qaadataa marka that was the question thank you هذا ما تسنتها جويري إن واسكو وضع فقنا في لنا waxa ugu muhiimsan kalaamidka markii la joogo in dhalinyarada ama guud ahaan wax laga qabtay tahay in sare loo qaado wacyiga bulshada guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada siyaabo kala duwan maxay ahayd dhalinyarada wacyigooda ama aqoonta la xiriirta isbedelka cimilada iyo sida wax looga qaban lahaa loo siin karaa waxaa ka mid ah institutionada waxbarashada ka shaqeeya oo kala gaar ahaan jaamacadaha oo kaleeto inay kuliyadaha ama departmentska la xiriira environmentiga ama isbedelka inay soo kordhiyaan sidoo kaleeto wasaaradda waxbarashada waxaan ogaa iyadoo meel fiican marayso iyadoo qorshaha maxay ahayday in lagu soo daro manhajka maada deegaanka la xiriirto of course haddii deegaanka maada la xiriirta meesha imaadan isbedelka cimilada ardayda fursad ay u helaan inay wax ka bartaan sidoo kale jaamacadda markii la joogana kuliyadaha kala duwan maadooyin waxaa jira moogtaa kuliyadaha compulsory looga dhigi karo waa lagu dari karaa maadaama hadda ay tahay maxay issue jiro dhalinyarada dhan inay maxay ahayd wax ka bartaan ay ka faa'iideystaan inay tahay waa meelaha ugu fudud markay imaato dhalinyarada formal education ku jira wax lagu gaarsiin karo sidoo kaleeto ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka gaar ahaan dhalinyarada waxay sameyn karaan platformyo kala duwan ay ku gaarsiinayaan dhalinyarada kaleeta ee maxay ahaydey ama mar hore waxbarashadii ka qalin jabi ama waxbarashadii formalka ayda ku jira informal ku jiro Soomaaliyaana fadhi ku dirirkan jecelnahay fadhi ku dirirey barnaamijyada loo qaabeyn karaa annagoo kale hadda barnaamij daangii deegaan lahaan leenahay iska informal waaye waa la daangeystaa waa la shaaxeeyaa qof la casuumaa waa meesha lagu fadhi ku diraa waa laga sheekaystaa mawduuc meesha yaala lagu sheekaystaa waxaa sidoo kale la sameyn karaa waxaa la develop gareyn karaa education materials keliya maaha in oo research la qoro
researchka aad u muhiim u yahay sababtoo wax data anaga dalkeen lagama hayo markii la imaado sectorka environmentka iyo climate-ka aad u kooban yahay waa boorinayaa ICE inay maxay ahayd hadda gaabkaas shaqo weyn ay ka hayso inay wado laakiin dhanka kale waxaa loo baahan yahay in oo dadka wax akhrisan kara xataa at least ama suuqa jooga dhalinyarada ama maxay ahayd dadka xataa miyiga jooga dad badan wax akhrisan kara jiro inay heli karaan buug yar oo kale ama maxay ahayd material loo develop garan kara akhrisan karaan siyaabaha Soomaalida wax ku fahmaan waxa kamid ah sheeko xiriirta oo kaleeto in podcast la sameeyo hab oo adiga habkayga wax la sameyn karaa mise siyaabo kala duwan maxay ahayd dhalinyarada wax lagu gaarsiin karaa inay aaminsanahay hal si oo dadka oo dhan wax lagu wada gaarsiin karo oo la isku wada waafaqsan ma jiro laakiin cid walba inaan intaan fiirino maxaa ku habboon oo dhahno IDBs ka magaalada ku hareeraysan marka tagto dhalinyaro far badan ay joogto laakiin de qaabka wax u gaarsiinaysa la mid ma ardayda jaamacadda Siimad qaabka u gaarsiinaysa wacyigooda marka artina dhistay ayaga isku mid ma soo marka qolo walba inaan fiirino maxaa ku habboon in isweydiino kadibna aan gar laakiin mar walba waxa muhiim ah inta wax baratay access-ka u leh xogahan aan ka sheekeynayno iyo inta kale yaa badan in la isweydiiyo marka dadka kala badanaysa u gaari lahayn ka shaqeyno aad ma santa